السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتكم حلان جنال كمركة للسودة واضح أدي هذا ومهدسنتهين عيد وناكسن أيانا دي هاي ميل كستو أدكو عيدين يولي بسيك كستا وأدو عيدين مانتوا إسنين سودن يكوذا بيشا ماتش سدحات سنة كلابادو كون يشان يلاباتنكا مالمهانا حوغا وانسكهر قبسانا سيدا أن عدكي هادا وأدكدر يميسان وأدكا أيا إيجا حرنا وحوصو مدو بكرين أفرتي مالمود إلا صودا في رمضان وإسكجري marka hadda dib ayaan u soo laabtay walow aan ka soo kabsanayo wali hargabkii soo dhawaada ayaan markale idilay muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago garsoore maxkamad federaal ah oo maamulka Trump ka hor istaagay in dadka uu musaafurinayo uu wadan saddexaad oo aan wadankoodii ahayn uu u musaafuriyo arintaasi ayaan idin la wadaagayaa iyo dowladda Mareykanka oo wali wada maamulka Trump inay cagta mariyaan ardayda ay uga shakisan yihiin inay Falastiiniyiinta ay taageerayaan imise arday ayaa ilaa iyo hadda viisayaashii ay kala laabteen iyo maxkamado kala duwan oo qaar ka mid ah ardaydii ay xireen oo wali socdo oo lagu amrayo in wadanka aysan ka masaafurin karin ardaydaasi ilaa iyo maxkamadii ay go'aan ka gaarayso ama dacwadda socota go'aan laga soo saarayo qaar ka mid ah ardaydana waa iska carareen wadamo kale ayay aadeen kuwa kalena dowladdu waxay leedahay waa in iyagu ay iskood isku masaafuriyaan arrimahaas ayaan idin la wadaagayaa balse marka hore soo dhawaa maamulka Trump waxaan ognahay in wadamo dhowr ah oo heshiis la galay uu yiri dadka qaarkood aan masaafurinayno ayaan idin keenaynaa wadamadaasina ay ka aqbaleen waa wadamo inta badan Latin America ku yaala marka hadda garsoore federaal ah ayaa gabi ahaanba waxa uu si ku meel gaar ah u joojiyay siyaasadda Trump uu wadan saddexaad oo aan wadankoodii ahayn oo ugu masaafurinayo dadka final removal ka haysto oo lagu amray in wadanka laga masaafuriyo arintaasi oo sheegay ilaa iyo maxkamadda ay go'aan kale ka soo saarayso in wadan saddexaad maamulka Trump uusan dad u masaafurin karin garsoorahan oo magaalada Boston fariista oo magaciisa la yiraahdo Brian Murphy ayaa go'aankan jimcihii soo saaray waxaana uu ka dhaqan gelayaa guud ahaan wadanka in si ku meel gaar ah maamulka Trump looga hor istaagayo in uu dadka u masaafuriyo wadan saddexaad oo aan wadankoodii ahayn arintan waxa uu yiri waxa laga qabaa cabasho aad ah oo ku aadan in siyaasadan xadgudub ay ku tahay sharciyada caalamiga ah gaar ahaan sharciga ka soo horjeeda in jirdil lagu sameeyo dadkaasi waxa dhacday in hadda El Salvador dadkii ay u masaafuriyeen oo 200 kor u dhaafay maamulka Trump oo sharcigii Alien Enemy Act 1799 uu adeegsaday la leeyahay dadkaasi in ay jirdil kala kulmayaan xabsiga El Salvador ee la geeyay marka sidaas darteed waxa uu leeyahay waa in gabi ahaanba la hakiyo marka garsoorahan amarka ka soo baxay ayaa waxa uu ciidamada ICE ka hor istaagaya in shakhsiyaadka haysta final removal-ka amarka ah in wadanka laga saaro amarkii ugu dambeeyay maxkamadda ay ku amartay in wadanka laga masaafuriyo aysan wadan saddexaad u masaafurin karin ilaa iyo ciqaab sharciya maxkamadda ee arintaasi ay amrayso sidoo kalena waxa in ay leeyihiin arintaasi waxa amarkaasi uu sii jiri doonaa ilaa iyo 10 bisha afraad ee soo socota waliba maxkamad ayaa go'aan ka gaaraysa in la sii kordhinayo iyo in kale isla markiiba wasaaradda cadaaladda ama racfaan ay arintaasi ka qaadatay maamulka Trump ayaa ilaa iyo markii xilka uu la wareegay waxa uu waday in wadan saddexaad ama wadamada qaarkood oo heshiis la galo oo dadka wadamadoodu aysan aqbalaynin oo wadan saddexaad u masaafuriyo wadamada inta badan uu u masaafurinayo waa Latin America iyo waliba Caribbean-ka waxa kamid ah Mexico, Guatemala, Colombia, Panama iyo waliba El Salvador wadamadaasi ayuu u masaafurinaya marka dadka sidoo kalena sharcigii Alien Enemy Act oo 1978 arintiisa maxkamadda sare ayay gaartay waa kii garsooruhu yiri waa in faahfaahin aad ka soo bixisaan amarkayga aad jabiseen oo ah diyaaradaha la soo celiyo markaan idiri 2 toddobaad ka hor oo dowladdu ay soo celin wayso marka Trump maxkamadda sare ayuu hadda codsi u gudbiyay waxa uu leeyahay waa in loo amraa in dadka gaangiska ee wadanka jooga aan masaafurin karin maadaama garsoorahaas uu naga hor istaagay marka garsoorayaasha iyo maamulka Trump waxa waa dacwado dhowr ah ayaa u dhaxeeya Trump xitaa hadda waxa uu soo jeedinayaa in qaar kamid ah in garsoorayaasha dacwadan ay ka socoto in impeachment lagu sameeyo ama xilka qaadis xitaa qaar kamid ah shirkadaha waaweyn ee matalaya dadkaas ayaa waxa wasaaradda cadaaladda ku amray in ayagana sidoo kale tallaabo laga qaado qaar kamid ah shirkadaha waaweyn ee dhinaca sharciga heshiis ayay la galeen Trump kuwa kalena dacwado ayay ku soo ogeeyeen waxay leeyihiin Trump waxyaabaha uu ku dhaqmayo wax sharciya ma aha marka arintaasina waa ay jirtaa dhinaca kalena Trump maamulkiisa wali waxa ay sii wadaan qabqabashada
ardayda ajnabiga ah oo looga shakisan yahay in ay Falastiiniyiinta taageereen mudaharaadyadii markii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas u dhaxeeyay uu bilowday sanadkii hore in ay mudaharaadyo sameeyeen ardayda jaamacadaha marka dadkii hormuudka u ahaa kuwii ka qayb galay kuwii u ololeynayay dhammaantood dowladda Mareykanku qabqabasho ayay ku haysaa marka wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio ayaa waxa uu sheegay in ka badan 300 oo arday oo hadda arday ajnabi ah in viisayaasha ay kala laabteen waxa ugu dambeysay hadda ardayad wadanka Turkiga ka soo jeegta oo visa F1 wadanka ku joogta oo waxbarasho oo 30 jir ah oo la yiraahdo Rumeysa Ostrik in toddobaadkii hore laga qabtay gobolka Massachusetts gaar ahaan meel u dhow magaalada Boston jaamacadda Tufts University ay dhiganaysay sawiradan iyo waliba muuqaalada in ciidamo dharcad ah oo afku u duuban yahay in gabadhan oo gurigeeda ka soo baxdo xitaa xilligaas afur u socotay in ay qabteen oo xitaa iyadoo qaylinaysa la maqlay mobilkeeda iyo boorsadeeda laga qaaday kadibna la jeebiyay xitaa garsoore ayaa wuxuu amar ku bixiyay in Boston laga saarin laakiin isla markiiba waa lala cararay oo gobolka Louisiana ayaa lagu xiray marka hadda garsoore ayaa amar soo saaray garsoorahaasi Dennis Casper ayaa la yiraahdaa waxana ay garsooruhu uu amarka ku bixiyay in maalinta Talaadada oo berri ah ay dowladdu ay ka soo jawaabto cabashada ay qareenada gabadhaas Rumeysa ay dowladda u gudbiyeen dowladdu waxa ay leedahay sida wasaaradda amniga gudaha afayeen u hadlay howlad lagu taageerayo Xamaas ay gacmaha kula jirtay marka waxyaabaha lagu haysto waxay tahay sanadkii hore markii mudaharaadyadu ay socdeen ayaa wargeys ka soo baxay jaamacadda ay dhiganaysa Tufts ay qoraal ku qortay Falastiiniyiinta ay ku taageeraysa arrinta lagu haysto waa intaasi oo kaliya marka dowladda hadda garsooruhu waxa uu sidoo kale leeyahay ilaa iyo kiiskeeda maxkamadda ay go'aan ka gaarayso wadanka lagama masaafurin karo gabadhaasi Rumeysa la yiraahdo sidoo kale wiilkii Falastiiniga ee Maxamuud Qaliil oo dowladdu sidoo kale inuu Xamaas taageero ay ku eedeysay dowladdu eedeymo cusub ayay u soo jeedisay waxa kamid ah markii green card uu qaadanayay inuu ka been sheegay meel uu ka soo shaqeeyay ilaa iyo 3 eedeymo oo kala duwan marka wali isaguna waxa uu ku xiran yahay Louisiana marka New Jersey oo laga qabtayna dacwado ayaa ka socdo sidoo kalena gobolka Louisiana dowladdu eedeymahaasi cusub ayay u soo jeedisay sidoo kalena arintaas ayaa ka socdo sidoo kale dowladdu waxay sii wadaa qabqabashada ardaydaas ajnabiga ah ee waxbarashada u joogay wadanka Mareykanka qaarkood wadanka Canada ayay u carareen kuwa kalena waxay dowladdu leedahay marka hadda waa in iyagu iskooda isku masaafuriyaan oo abkii CBP Home oo dowladdu ay sameysay oo dadka ay iyagu informationkooda intay geliyaan self report ay isku sameynayeen oo ismasaafurinayeen waa inay isticmaalaan wadankana ay ka tagaan marka arintaasna dowladdu wali waa ay sii wadaa in ka badan 300 sida hadda oo wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay viisayaashii waxbarashada ay kala laabteen qaarkood waa ay xiran yihiin hadda waxaan arkay Minnesota laba maalmood ka hor in laga qabtay arday jaamacadda Minnesota dhiganayay oo isagana ardaydii u dambeysay oo dowladdu ay qabatay ahayd marka waxyaabaha kale ay ka soo kordha hadii Alleymo ay la soo socodsiin doonaan laakiin maamulka Trump weli howlihiisa qabqabashada iyo masaafurinta halkiisii ayuu ka sii wadaa inkastoo maalmahan ugu dambeeyay warbaahintu aysan si toos uga hadlaynin laakiin dowladdu howlaheeda waa ay wadataa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo